bismillahi raxmaan raxiim. Cashirkan waxaan ka bilaabanaya editing data, xogta sida loo edit gareeyaa. Waxaa leenahay you can edit the contents of the cell. Xogta cellkaaga ku jirto waa edit gareyn kartaa directly in the cell or by using isticmaalada the formula bar. To edit the data direct xogta inaad edit gareysid, double click waxaad sidaa the cell that contains ee ku jirto the data you want to edit directly inaad ku sameysid. The cursor blank vertical line one appears waxaa kasoo muuqanaysa in the cell in the location that you double click location markaas aad double click dhahdo. To insert the direct inaad soo geliso characters xarfo kaliya waxaad siisaa where you want to make a changes meesha aad rabtid inaad ku sameysid isbedela, and then tab waxaa qortaa new character ka aad rabtid. waxaa leenahay to delete direct xaraf inaad to click waxaa leenahay where you want to make a changes meesha aad rabtid inaad ka sameysid, then press waxaa riixdaa backspace or ama delete key. When you are finished markaad dhamaystirtay waxaa leenahay press the enter key. Moving and copying cells marka la koobiyanayo ama move lagu sameynayo cellska waxaa leenahay when editing a worksheet you may want to xubnaan kartaa to duplicate inaad duplicate ku sameysid a cell in another location or ama remove cut a cell from its original location inaad ka qaadid and place it in a new location boos cusub inaad geysid. A copied cell can be pasted multiple times in badanaa la meel la dhigi karaa wixii aad copy ku sameysay. Cut cell can be pasted only once marka wixii cut aad ku sameysay hal mar aad dhigi kartaa paste marka la joogo Excel. waxaa leenahay marka to move a copy markaa sameynaysid ama move markaa sameynaysid waxaa leenahay select cellka aad rabtid inaad ku sameysid move ama copy. waxaa leenahay home taa tagaysaa clipboard group kadibna ka dooro waa mid kamid ah. haddii aad rabtid move inaad sameysid cellkaaga cut waxaa leenahay button ku dhufo. sidoo kale ama waxaad sameyn kartaa press control plus x. marka cut iyo copy paste waxaa kusoo baranay haddaa xasuusataan wordka aad kusoo qaadanay. marka waxaa leenahay hadartaan muraajaca ahaan u qaado. waxaa leenahay marka to copy haddii aad rabtid cell inaad ku sameysid click waxaa leenahay copy button or ama press waxaa leenahay control plus c. select waxaad doorataa cellka aad rabtid inaad paste ku sameysid ama wixii aad soo copyeysa aad dhigtid aad rabtid. waxaa leenahay home tab clipboard group kadib waxaad doorataa paste ama waxaa leenahay control plus v paste button ama ku dhufo waxaa leenahay control plus v. sawiradan noo soo baxayo copy paste hore u qaadanay paste special waxaa lahaa soo raacaya kanoo arki doonaa. Formatting cells and cell contents marka la qurxinayo cellisha ama cell contentiga qoraalka ku jiro waxaa leenahay you can format a cell and cell contents ama qoraalka waxa ku jiro ama waa qurxin kartaa cellka nafsirkiisa by changing adoo bedelayo fontiga oo kale farta sizekeeda farta styleka ee u taalo iyo colorka adoo bedelayo as well as adding adoo ku darayo cell borders oo kale. anjanjo waxaa bedeshaa the background aad bedeli kartaa colorka of cell. The font group on the home tab of the ribbon contains waxaa ku jira the most commonly used formatting commands inta ugu badan formatting la isticmaalo. You can also format a cell using isticmaala the format cell dialog box kaaga soo baxayo which can be opened by clicking or click siinayo the dialog box layer in the font group. sawirka noocan ku soo baxay font group waa kana changing the font and font size. to change direct inaad ka bedeshid fontiga inaad ka bedeshid waxaa select cellka ay ku jirto qoraalka aad rabtid inaad format ku sameysid. home tab aad tagaysaa font group kadib waxaa leenahay font arrow and select aad doorata desired font ee u baahanta from the list. waxaa leenahay change the font color and fill color haddii rabtid inaad sameysid. you can change the font color of a cell contents or ama the background color of a cell to emphasize important data or add a visual impact to worksheet. marka waxaa leenahay waxaa bedeli kartaa farta colorkeeda contentiga qoraalka ku jiro ama backgroundka gudaha oo cellkaaga bedeli kartaa si markaas aad u muujisid waxyaabo muhiimka ah oo markaas aad rabtid inay soo muuqdaan worksheetkaaga kasoo muuqdaan. haddii aad rabtid inaad bedeshid colorka select waxaad doorata cellka aad rabtid inaad ka bedeshid dooro kadib waxaa leenahay home tab font group kadib waxaa leenahay font color button to apply the most inta ugu badan recently used colors inta ugu badan la isticmaalo si aad u aasho or ama click waxaa leenahay font color arrow
select waxaad doorataa different color from the color palette ka dooro. waxaa leenahay tujaanja direct inaad ka bedeshid fill colorka oo kale. select waxaad doorataa cellka aad rabtid inaad format ku sameysay, home tab, point group, kan waxaa leenahay fill color to apply the most recently used color. or ama click waxaa leenahay fill color arrow and select waxaad doorataa different color from the color. applying point style ka bilaabeyna cashirkeena xiga insha Allah. waxaan ka bilaabeynaa editing data. waxaa leenahay edit marka lagu sameynayo tusaale meeshan waxay ugu qoran names iyo id oo kale. marka waxaa rabaa inaa xarfa qaar soo geliyo, xarfa qaar ka tiro, magacyada qaar ka tiro, waxyaaba noocaas oo kale inaa isticmaalo. waxaa leenahay horta meesha aad rabtid tusaale yaxyi aa rabaa inaad tiro, magac kale ku qoro kale, ama xarafka u dambeeya inaad ka tiro tusaale. marka waxaa leenahay double click cursor-ka marka soo galayo meesha, kadib waxaa leenahay xarafka rabtid tuur. tusaale waxaa rabaa ida inaad tuuro. marka ida saa u tuurto waxaa soo mareysaa geeskan soo maray cursor-ka, kadib backspace dheh. haddii ka hor marka cursor-ka gudahaas uu ku jiro wayda aad rabtid inaad tuurto ama iska tirto, waxaa leenahay delete taabanay meesha backspace aad ka taabanaysa. waxaa leenahay marka inaan dib u qoraaro haddana sidaas oo qori karta sida caadiga ah. waxaa rabaa marka copy iyo move inaan sameeyo. waxaa tusaale xogtaan dhan helaad inaan saaro, aa copy aa inta dhigto. sidee yeeli karaa marka? waxaa isticmaalaysaa copy paste-ga caadi aan naqaanay. helaad hadaa saaro aa dhaho copy, clipboard-ka waa kana copy aa ku dhufto, home tab ku jiraa copy aa ku dhuftay, kadib waxaa tagay meeshaan oo kale, kadib waxaa dhahay paste. wuxuu sameyn doonaa meeshii oo iisoo dhigay, soo jeedi. marka haddii cut aa sameeyo maxaa dhacaya marka? copy ilaa hadeertaan wuu ii wadaa, paste waa dhigi karaa, wuu shaqeynayaa, meelahan dhan waa dhigan karaa. laakiin haddaa dhaho cut maxaa dhacaya? tusaale waxaa sameeyey kan oo kale hela saaray, kadib waxaa dhahay cut, kadibna intaa imaaday, kadib waxaa dhahay paste. wuxuu sameeyey move, yacni booska u yaal dhan oo kasoo qaaday, booskan oo ii keenay. sidaasaa marka waxaa ku sameynaysaa cut. markii excel la joogo wuxuu kuu sameynayaa hal mar oo qaadayaa meeshii markaas aad rabtid kuu geenaya, laakiin mar labaad ma jirto iyo mar saddexaad sida wordka caadiga isticmaalayno kale maaha. waxaa leenahay point and point size marka wax laga bedelayo. tusaale kan waxaa sameynaynaa meeshiisa ku xilinaynaa control z, kadib waxaa leenahay dilintan oo wareega daarabta inaad iska qaadid escape dheh, sidaas kaaga qaadin doonaa. waxaa rabnaa marka inaan sameyno waxa la yiraahdo point and point size. shortcut-yo leeyahay copy, paste iyo cut. waxyaabahaasna waxaa oga tagay cashiro hore aa usoo qaadatay inay ku jireen. marka shortcut-yadooda idinkaa horey u qaatay waana haysataan oo taqaanaan. waxaa leenahay marka point and point size, farta iyo cabirkeeda waxaa rabaa inaan ka bedelo. tusaale waxaa leenahay heelada saara qaybtan, kadib waxaa rabaa inaan xoogaa waaweyneeyo. waxaa leenahay qaybta imaaw, wax ku dar size-ka, kadib markaa weyneysid saa-id u weynaan soo maa xoogaa soo celi. okay, qaybta waxaa leenahay cabirka saasa u weyneyn kartaa. farta inta imaaw nooca rabtid kasoo baxso, nooca markaas aa rabtid. waxaa kaloo sameyn kartaa qaybtan kale ayadana helaad inaad saarto, far gooni inaad u isticmaasho, size goonina aad u isticmaasho waa sameyn kartaa. marka hadda inta marka la fiiriyo magaca iyo id waxa way kala qarsoon yihiin soo ma. waxaa leenahay inta tagayna double click siinayna, inta tagayna double click siinayna si ay isku ekaadaan. okay, waxaa sameynaysaa marka farta size-keeda saas u bedeli kartaa, style-ka fartana saas u bedeli kartaa. waxaa rabaa marka color-ka inaan wax ka bedelo. tusaale waxaa leenahay heelada saare madow waaye soo ma, farta color-keeda rabaa inaan bedelo. meeshaan imaaw eeda ee ku taalo, kadibna dooro waxaa rabtaa farta aad rabtid markaas. tusaale far waxaa rabaa noocaan oo kale, qaabkaas marka farta color-keeda u bedeli kartaa. ka waran marka farta meesha ay ku fadhisa daaro inaan wax ka bedelo, yacni qaybteeda dambe daaro inaan wax ka bedelo. waxaa leenahay inta imaaw, kadib waxaad doorataa nooci markaas aad rabtid. tusaale noocaan oo kale aa rabaa. qaabkaas marka
dooran kartaa. Marka waxaa kaloo sameyn kartaa border iyo waxyaaba noocaas oo kale. Tusaale halaana heelad saarayaa, kadib waxaa leenahay qaybta waxaa imaadaa find group, kadibna qaybta imo, kadib waxaa leenahay all border oo kale. Tusaale all border markaa muxuu sameeyey, dhammaan wuxuu sameeyey gidaar uu sameeyey. Hadda inta way leeyihiin laakiin kuwa daciif way leeyihiin, borders oo daciif way leeyihiin. Marka kan oo kale hadda borderkiisa iyo kan borderkiisa kana si fiican loo dareemayo sooma. Haddii border aan rabin waxaa ka dhigi kartaa sida caadiga ah oo normalka ah, no border oo kala dhigi kartaa. No border haddaa dhahay sidaan oo noqonaya sida caadiga oo kale. Haddii list iyo document wax noocaas yani file haddaa diyaarinaysid, borderskana iska isticmaasha fiican si uu kugu qurxanaado oo qurux ku noqdo. Marka samples waa waxaan hadhow marka waxaa laga rabaa in documentiga ama xogta markaas aad qoraysid inaad si fiican quruxsan karto, size-ka, cabirka, farta, kalarkeeda, waxyaabahaas dhan inaad wax ku habboon aad isticmaali kartid la rabaa. Cashirkeena intaan ku egahay waa mahadsantihiin.